السلام عليكم صاحبيال halkan waa kanaalka hanweyn oo aad kaga barateen barashada cilmiga kombiyuutarka noocyadiisa kala duwan muuqaalkeena maanta waxaan insha Allah ku baran doonaa qaabka aad u la dhigi karto muuqaalada TikTok waliba iyagoo watermark la'aan ah soo dhawo marka hore waxaa muhiim ah inuu taleefanka ku jiro application-ka TikTok ama aad la soo degto haddaba waxaad imaanaysaa qaybta Play Store-ka taleefankaaga waxaad ku qoraysaa halka search-ka magaca TikTok kadibna waxaad leedahay search dabcan iminka anigu wuu igu jiraa balse haddii adigu ugu jirin waxaa lagu soo bandhigi doonaa calaamad cagaar ah oo dusheeda ku qoran tahay install halka ku dhuf kadibna ku shubo taleefankaaga marka xigta waxaad u baahan tahay application-ka lagu magacaabo Snaptik waxaad markaa ku qoraysaa qaybta search-ka ee Play Store-ka Snaptik waxaan ku dhufanayaa midka afraad kadib waxaan leeyahay install kadib waxaan leenahay open kadib waxaan leenahay allow kadib waxaan soo fureynaa TikTok muuqaalkan ayaa rabaa inaan la dego si tijaabo ahaan ah waxaan ku dhufanayaa calaamadda share kadib waxaan ku dhufanayaa sumadda buluga ah ee ku qoran tahay copy link waxaan dib ugu noqonayaa application-kayga Snaptik kadib halkan waxaan gelinayaa linkiga aan soo koobiyay anigoo farta ku riixaya qaybta cad kadibna waxaan leeyahay paste inta kadib waxa hoos iga soo muuqanaya muuqaalkii iminka aan soo koobiyay linkigiisa waxaana ku dhufanayaa download inta kadib waxaan aadayaa qaybta gallery-ga taleefankayga si aan u hubiyo in muuqaalku uu soo degay dabcan iminka waxaan arkaa in muuqaalka ugu horeeyo uu yahay muuqaalka iminka aan soo dejiyay oo TikTok ahaa isaga ayaan ku dhufanayaa si aan u furo طبعا sida kaaga cad muuqaalka ma lahan wax watermark ah ama sumadii iyo magacii TikTok ka soo cadeynayay qofka iskale muuqaalkan iyo halka muuqaalkan lagala soo degay muuqaalkeena maanta halkaas ayuu ku eg yahay waxaan ka codsanayaa dad ku cusubta kanaalkana subscribe inoo saarto muuqaalkan aad like inoo siiso oo si shaqareysa asxaabtaada tani muuqaalka xiga waxaan kaga tagayaa sida ay nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh